anigu waxaa ahaa nin iska dhalinyara oo waxbarasho ku jiro. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inaan gabar iska baranay social media, Okay. gaar ahaan aaladda WhatsApp-ka Aha. aan iska baranay. Sax. Waxaa dhacday xilligaas anigu arday baa ahaa, lambarkayga waxay ku heshay anigana aan labadeena isku helnay. Waxaa dhacday aniga waxaan ahaa dadka aad u isticmaalo share-ka wax la dhaho. Okay. Share aan isticmaali jiray, marka waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah wiil dhalinyaro aan asxaab nahay share uu ii sameeyey inay gabadhaas iga soo raacday. Okay. Waa gart. So meeshaasuu ka bilaaway kulankeena koobaad iyo barashadani. Waa gart. Waxaa dhacday in aan isbaranay. Barashadani waxay ku bilaabatay si saaxiibtinimo ah Aha. bilowgii. Aha. Saaxiibtinimadeeda aad u dheeraatay muddo 2 bilood markii la joogo. Waxaa dhacday in aan anigu dareen jacayl gabadh u qaaday. Okay. Markaas waxay joogtaa Soomaaliya, gaar ahaan Galgaduud meel dhaha waa taqaanaa umaleynaa. Okay. Gobolka Galgaduud. Gobol Galgaduud. Galmudug. Haa, aad iyo aad. Okay. Aha. Galgaduud joogtay markaas. Sax. Marka waxaa dhacday in aan isbaranay, barashadeennana ay ku bilaabatay si saaxiibtinimo ah. Waa gart. Saaxiibtinimadeeda kadib aniga marka dareenka marka hore helay, dareen jacayl ay igu abuurmay aan u qaaday. يعني waa ka hesh. Haa, aad iyo aad. Jacayl oo qaad. Haa. Aha. Saaxiibtinimo waa la iskala gudbay. Waa la iskala gudbaa. Aha. waayo wax walba aas-aasay leeyihin, waxay ku bilowdeen leeyihiin. Sax. Marka waxaa dhacday in aan anigu saaxiibtinimo isku baranay, Aha. kadibna aniga oo jacaylku i helay marka hore, oo dareen jacayl oo aad runtii aan aad ula qiirooday igu dhacay. So waxaa dhacday in i soo dhaweysay gabadhaas. Aha. يعني waa u sheegatay. Haa, waa la wadaagay Sax. in aan jeclahay Aha. qofta kaliya aan ku riyoonayo inay tahay ayada Sax. aan ka dhaadhacsiiyey. Aha. So waxaa dhacday gabadhii inay aad igu qanacday ee i soo dhaweysay. Anna runtii aan aad ugu farxay, waayo waxa aan filanaya waxay ahayd in maaragtay dhankeeda aan ka helo aqbalaad. Aha. So tiina waa ii hirgashay. Waxaa dhacday 2 qof oo aad isku jecel oo aad runtii iskaga warqabo oo mar walba maaragtay 2 qalbi oo isku xiran Aha. baan noqonay. Sax. So waxaa dhacday in labadeennii xiriirkeenni si wanaagsan asagoo ku socdo, aniguna aan dee qof dhalinyara oo waxbarasho ku jiro aan ahay. So waxaa dhacday in caqabado badan ay aniga igu soo wajaheen. Okay. Caqabadahaas waxay ka mid tahay qofkii uu kaa dheeryahay ma arki kartid. Aha. So aniga nafsadeeda waxaan ka dhaadhiciyey gabadhaan maanta aad jeceshahay oo xiriirka jacayl ah u qaaday mana arki kartid, qofkiina waa jeceshaha. Aha. So waxaa dhacday in aan aad ugu xiiso araggeeda in aan arko, Sax. balse ay aad iiga fog tahay. Aha. So waxaa dhacday anigoo meeshii xiriirkeena sidii noogu socdo, waxaa dhacday qaxootiga waxaa jira wax la dhaho repatriation ay dadka qortaan. Okay. يعني dib u celis. Dib u celis. Haa. Aha. Dadka Soomaaliya loo celiyo. Soomaaliya in loo celiyo. Haa. oo adigu codsanaysid. Haa. يعني qofkii waa soo codsanaya. Haa. Waa gart. Marka waxaa dhacday wax repatriation la dhaho inaan qorannay. Aniga markaas repatriation-kayga wuxuu ahaa Ethiopia, ma ahayn Soomaaliya inaan ka imaaday. Okay. يعني deegaan wax ku yahay Ethiopia. Haa. markii hore meesha ka soo jeedaba. Deegaan ahaan haa. Kama soo jeedin, laakiin qof walba markuu qaxootiga soo galay waxaa jiro qof walba meel baa u qoran, region baa u qoran. Sax. So waxaa dhacday aniga in aan Ethiopia aan qortay, laakiin dhalashadeedu ay tahay Soomaaliya aan ka soo jeedo. Okay. Sax. Marka arrimo awgeed aan u qornay Ethiopia way jiraan, oo dadka dee waa taqaanaa dad badan waxaa jiro Ethiopian iyo wax buufsi waxyaabo badan ee dadka lagu baxaa jiro. يعني waa kaga fudiyin kuwa Soomaaliya kiima. Kaga fudiyin. Haa. ama kuwa Soomaaliya kiima aad u badiyay dadkaas ayaro. Haa. hadii la rabo ayaga la qaada camal. Haa. adiga soo familka u khaas u sameysay. Haa, familka sameeyay, laakiin aniga dee kaarkii baa kamid ah Soomaaliya. Qof waxaa ahaa shakhsi kamid ah reerka. So go'aankaas aniga ma gaarin. Sax. laakiin waa ka warhayo reerku waa la socdaa Soomaaliya. So waxaa dhacday in anaga noo qoranayd Ethiopia. waxaa dhacday in UN-kii la dhaho repatriation ama waxaa laydin celinayaa qalbiyey meesha la dhahay waa taqaanaa umaleynaa oo Kakumo. waxaa dhihi kartaa xeridaas kale hala ii wareejiyo. So waxaa dhacday anaga maadaama muddo dheer meesha aan ku nooleen. Sax. oona haddana qaxooti kale oo cusub aan sii noqon karin. waxaa dhacday in anagu repatriation-ka aan qorannay in waddankeena loo celiyo. Sax. taasna aniga fursad weyn ay igu jirtay, waayo waa midda kaliya maanta gabadhaas aan ku arki karo oo runtii waxay ahayd mid aad ani ii farxad gelisay, maadaama aniga riyadeedii qayb ka mid ah ay ahayd. Sax. So waxaa dhacday in repatriation-ka aan qorannay muddo adigu laga joogo 5 bilood markii aan gaarnay
waxaa dhacday in naloo yeero oo UN-ka aan tagno familka oo dhan sawiro in laga qaado sawirada markii la diyaar gareeyay kadib waxaa dhacday in oo bixitaankeena uu soo dhawaaday sax soo bixitaankii markuu soo dhawaaday anaga waa is diyaar gareynay aniga runtii maalintaas farxadeeda lama qiyaasi karin waayo qofkii riyada aan ku riyoonay muddo badan baan la kulmi rabaa laakiin intee u socotaa tiri markaas Itoobiyo aydan galgudud Soomaaliya galgudud joogtaa uma socotid ayada mise waxaas leedahay meesha kaga dhow macnaha marka Itoobiya aan tago galgudud iyo Itoobiyo waxaa jira jigjigo marka laga tago ina galgudud dhinaca laga galo okay yani waa kaga dhowdahay sidii hore Kenya iyo meesha kale xagga kaga dhow way kaga dhowdahay okay weygii aan meeshaas ugu tagayno waxaa waaye in aan ka gudubno kaliya meesha deegaan ahaan uma rabno okay ana taas muhiimadii iigu horreey muhiimadii waxay ahayd aniga aan daneynayay oo waayo de qofkaaga maanta la kulmaysa wax kaaga farxad badan ma laha marka Itoobiya marka dhaaftin oo kale intee u socotaan idink Itoobiyo waxaan u soconaa galgudud gobolka aan ka soo jeedno familkeena ha soo gabadh galgudud kama soo jeedaa xataa meesha ka soo jeedaaba asal meesha ka soo jeedna asal ahaan okay laakiin ani ma filanaynin ma isdheeynin de gabar moqtay oo galgudud ka soo jeedo ay isbaranaysa ama xasaawo wadaagaysan sax wax walbana waxa kulmiya nasiibka iyo maaragtay calafka okay soo waxaa dhacday in barnaamijka lagu gudagalay bixitaankeena uu soo dhawaaday adiga waxaana loo yeeray waxaa la yidhi maalinkaas waxaa gelaysaan xerada soo diyaariya sax marka waxaa dhacday in reerkii diyaargarow la galay familkii waxaana la geeyey meel xero ah waa taqaanaa xerada xagareer qofka markuu degan yahay lagama baxo oo waxaa jirta xero kale oo ifo ku taalo oo ay u dhowdahay dhadhaab meesha diyaaradaha ka baxaan halkaasaa marka familkeen isku kay wada geeyey sax soo waxaa dhacday familki marka meesha la geeyey muddo adiga isbuucan ku jirna meeshaas isbuuc adiga waa ku dhibaatoonay dee meesha adiga meel maaragtay deegaankaaga aan ahayn oo qaxootiga kale ka baxsan meel bannaan ah dee waa fahmi kartaa nolosha ay haysatay jiifkii iyo cunadii iyo waxaas ma jiraan qof haddii kow waxaa noqonaysaa qaxooti hadda soo galay adi musaafiraata musaafir ahaa marka qofkii xaaladaha musaafirka uu mari lahaayoo kale aan soo wajahay sax soo waxaa dhacday meeshaas in muddo isbuucana lagu hayay anigana dee aan iska fikiraya aan leeyahay goormay la kulmi doontaa aniga wax kale iga dhex guuxay safarkan iyo waddankaagaa lagu celinaya ma ah muhiimadda waxaa waaye in gabadhaas kaliya aragtideeda aan maanta aan kulanno aan adduunka ugu jeclahay sax soo waxaa dhacday in safarkeen anigoo ku guda jirno waxaa dhacday wax baaritaan la dhaha lismarsiyaa inta safarka uu qofka gelin baaritaan